والصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا دمان في الجبانة golaha shacabka iyo shacbiga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qaybihiisa kala duwan oo beeraley xoololey xataa qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka dhisantahay ka samaysan tahay waan salaamayaa. salaanka bacdi waxaan rabaa horaan inaan idinka shacbiga aan u cudur daarto anigu ma ahayn qof oo miidiyeeda ku dhex badan oo ama ka hadalkeeda ama qalabkan hadda ayaamahan baraha bulshadeed iyo wax ka galgala ma aanan ahayn. hase yeeshee waxaa iqasbay duruufaha ayaaman haddii mar walba aad aragtaan wax kale ma aha ujeedada waajibaadkaygan ka hoos marayaa haddii aanan idinla socodsiin dhabta jirta ayaamahan duruufaha gaarka ah golihiina shacbiga matalayay duruufaha uu ku jiro awgeed inaan mar walba wixii dhab ah jira aan idin soo gaarsiiyo waa waajib isaaran maadaama ay ammaano nagu tahay hogaaminta golihiina oo codkiina aan ku hadlayno. saa daraaddeed baan soo noqoshada badatay marka waa ka cudur daarana haddii aan idinku badbatay. waana ujeedada oo dhanna waxay tahay in aan dhabta jirta aan idin sheego. waxaan idin xusuusinayaa in warqad xafiiska guddoonka soo baxday bishii 30keedii qodobka waxaan dhammaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida aan ku wargelinay una sheegnay xusuusinay aan iraahdo qodobka 127 ee dastuurka oo faraya in ciidamada qalabka sida ay ahaadaan dhexdhexaad aysan marna ku milmin garab siyaasadeed ama dhinac kale ayna u janjeersanin ayaa dhab ahayd oo yani dhab jirto aan u sheegnay oo mar walba inay u adeegaan danta guud ee dalka ayagoo ilaalinaya dastuurka iyo shuruucda. yani xilkaas waa xil dastuuri ah oo ay mar walbana ku shaqeeyaan marka ay ku adeegayaan ama ay ka howlgalayaan golaha shacabkana inay u hoggaansamaan dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha shacbiga uu ku dhaqmo. saa daraaddeed ayaa magaciisii xusuusintaasi maalintaa dhaweyd aan samaynay. waxaa jirtay in xalay aan la shiray taliyayaasha ciidamada qalabka sida taliyaha booliska, taliyaha asluubta iyo taliya xigeenka nabad sugidda iyo abaanduulaha xoogga dalka oo aan haddana mar labaad sii xusuusiyey in arrimaha ay ku socdeen inay maanta ka howlgalaan inaan dhabta ka jirta aan u sheegay ayaan si fiican ugu sii fasiray una xusuusiyey in ay dhexdhexaad ka aadaan garab siyaasadeedna ayna gelin kadeed kastoo u yimaada qofkii ayaga amar ay ka qaadanayaan ay u sheegaan wixii sharciga ah waxay fulin karaan waxayna fulin karin. hase yeeshee meeshii ka baxeen dibna iguma soo noqon hawshooda halkiisay ka wateen. saaka markaa meesha oo aan tegey aniga iyo gudoomiye ku-xigeenka wada soconay iyo kaaliyaashayda oo xoghaynteedii ayaa ila socdeen iyo dhowr qofood oo ilaalada haddii la ku roon yahay ilaalada guddoonka ah 12 qofood oo dharcad ah. waxaana lagu joojiyey raadi muqdisho. waxaa la yidhi halkan ma dhaafaysid jidkaa meeshan lagu joojiyey. waan weydiinay war golahayga shacbigaan u socdaa yaa amarka idin siiyey inaad sidaan u galayn iyo wax la galay. wasiirka amnigaana siiyey oo saxiixana ka aamushay. marka arrimaha waxaa weeye golihii shacbiga oo annaka aan gelitaankiisa rabnay baa haddana sida loo galayo amar bixintii aan xusuusiyey. qofkana dhahayna waa nin generaal ah. marka arrimahaas nasiib darro weeyaan in lagu kaco. waxaa kaloo intaa dheer in kumaankum ciidan ah lagu soo daadsiyo magaalada iyo golaha shacabka oo shacbiga dhan u jeeday dadka dhan u jeeday. waxaa nasiib darro ah haddan in la yidhaahdo golihii shacbiga gudoomiyihii golaha shacabka ayaa wuxuu qabsaday golihii shacabka oo haddii allah wanabi calaykum 12 qofood oo askari baan ku qabsan karaa golaha shacabka. marka arrintaasi waxaa weeye say u muuqato waxyaabo kale loola danleeyahay dhabtaas inaad ogaataan waa lagama maarmaan. waxaa kaloo dhacday in qodobka 38aad ee xeer hoosaadka wuxuu si qeexan u sheegayaa in qof askari ah aan soo geli karin ciidan ah aan soo geli karin golaha gudihiisa iyadoo amar aan laga haysanin hab dhowraha oo u xilsaaran asoo ku shaqeynaya amarka gudoomiyaha hab dhowraha u xilsaaran qofka soo galaya marka loo baahan yahay inuu soo gal la yiraahdo. hase yeeshee markaan meesha galay waxaan ugu tegay meesha oo magaciisa kontomey 60 wax ka badan oo ciidan ah oo golaha gudaha meesha xildhibaanada ku jira oo haddana
xeendaabyo samaysanayo oo meesha ku howlan arrintaas waa arrin aan loo qaadan karin anu nafsikii xataa ciidanka guddoonka aniga ila socda xataa oo dharcadka ah iyo dhowr qofooda oo amisom ah waxay fadhiistaan kuma soo dhowaadaan meesha kulanka oo fadhiga oo xildhibaanada waxay fadhiistaan xafiiskayga gadaal ay nagu sugaan marka arrin oo aan la yaabay noqotay markii dambe waxaan idhi meesha laga saaro waxaa intaa dheer in haddana 100 xildhibaan in ka badan in loo diiday albaabka inay soo dhaafaan dibadda meesha baabuurta lagu hayay ayay sii joogeen marka waa jawaari baa wax qabsaday golihii shacabka qabsaday guddoomiyihii golaha shacabka wuxuu qabsaday golihii shacabka waxay la mid tahay madaxweynaha madaxtooyada qabsaday oo kale marka waxaan wax lagu qoslo waayo wax lagu hadla ma aha waxaan aad iyo aad uga xumahay wararka noocaas oo kale oo la bixiyo iyo kumaankunkaas oo ciidan oo loo soo bixiyay dhowr xildhibaan oo shiraysa loo soo bixiyo oo haddana dabaabaadkooda iyo waxooda dhan wataan in la yidhahdo golaha shacabka ayaa guddoomiye qabsaday ama markii dadkaasi oo loo baahdo markii cadowgaa lala diriraa la yidhahdo kumaankunkaasi meesha aan ku arkayn xalay ilaa maanta aan la helayn waa nasiib daro taa iyadana ah marka sidaa daraaddeed waxaan shacbiga ku wargelinayaa ma jiraan wax oo marka ma jiro wax oo waxyaabaha ay maqleen iyo wax lala diriray iyo qof oo ciidan oo gacan qaaday wax ma dhicin alxamdulilah waxyaabaha oo meelaha lagu soo qorqoray iyo sharootooyinka la soo dhadhijiyay meeshii ay ka dhacday annaka meel waxaan ka naqaano maaha intaasoo dhan waa masabid waxa loola jeedana waa waxyaalo kale waa nasiib daro aniga oo cudur daaraya dhammaan taliyayaasha oo arrintaas ka hadlay waayo culays xoog leh baa saaran marka ha loo naxariiso wax kastoo ay maalmahan ku dhacaan insha allah waa walaalo fiican waan aqaanaa aqoon fiican bay leeyihiin waan ogahay sharciga inay yaqaanaan laakiin duruufo iyo culaysyo badan oo kadeed ku haya ayaa jira marka shacbigan waxaa anaa uga cudur daaraya saaxiibadeyda waa niman fiican oo shaqadooda yaqaan ciidankayna waa ciidan fiican يعني ciidankii maanta socday askarta wax dhibaato ah ma jirin laakiin amarada la siinay ayaa qalad ah marka waa intaas aan kusoo gabagabeeyo maanta inta dhacday inta ahayd marka golaha markii dib loo furi doono ayadoo waxaan ku dadaali doonaa in ayadoo labada garab ee xildhibaanada aan isu keennay iyagoo raalli ah wax kastoo ay ku heshiiyaan baarlamaanka ayaan u furo ayaan ka shaqaynayaa ayaamaha soo socda haddii aan la yidhaahdo idinkan waxaa idinka codsanayaa inaad ducada noo badisaan ilaahay nooga barya carrigan iyo ummaddan soomaaliyeed si rabbi raalli ka yahay oo annagana noo roon ilaahay inuu noo sahlo ducadaas iyaan la joojinin ha la wado yacni waxaa jiritaanka golaha shacabka ayaan aad ugu walwalsanahay waxaan rabnaa shaqooyinkii iyo howlihii iyo xooggii aan soo gelinay oo heerkan aan ku soo gaarsiinay inaan sii wadno haddii alla idmo oo marata in meel ka sareysa la geeyo maayo in hoos loo dhigo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انترفيو مدي